asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamayaa daawadayaal meel baa dunida ka joogtaan. halkani waa ls online. barnaamijkeeni guud ahaan waxa uu caawo ku saabsanaan doonaa ama uu ku saabsan yahay xiisad cusub oo ku saabsan xilka qaadis loo soo jeedinayo amba la dhageysanayo madaxweynaha wadankaasi maraykanka ay soo diyaariyeen aqalka sare ee koongareeska dalkaasi maraykanka. xiisadaasi ayaa waxa ay u dhexeysa safiiradii hore ee maraykanka u fadhin jirtay dalkaasi Ukraine Maria Yovanovich iyo madaxweynaha wadankaasi maraykanka. barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo ah Geela. kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeeni. aynu ku bilowno barnaamijkeeni. madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku weeraray safiirkii hore ee maraykanka ee dalkaasi Ukraine Maria Yovanovich iyadoo ay socoto dhageysiga cadeemaha xilka qaadista ku aadan madaxweynaha wadankaasi maraykanka. meel walba oo ay Maria Yovanovich aado way xumaataa. Mr Trump ayaa sidaasi qoray. waxay ka bilowday Soomaaliya sideesi ayay noqotay kadib dalkaas Soomaaliya sideesi ayuu noqday ayuu hadalkiisa soo raaciyay. mar arintaasi wax laga weydiiyay ayay Mrs Yovanovich ugu yeertay mid hanjabaad ah. Mr Trump ayaa mar kale soo jawaabay isagoo oo ku doodaya in qoraaladiisa aysan ahayn kuwa hanjabaad ah. wuxuu wariyaasha u sheegay inuu daawaday qayb ka mid ah qoraalada aysan ahayn kuwa hanjabaad ah. wuxuu wariyaasha u sheegay inuu daawaday qayb ka mid ah dhageysiga cadeemaha islamarkaana uu u arko mid sharaf dhaca. haddaba maxaa ka dhacay goobtaasi? iyadoo si toos ah uu ugu jawaabaysay qoraalkii Twitterka ee madaxweynaha wadankaasi maraykanka oo u muuqday mid iyada loogu cambaaraynayo in ay qas ka abuurtay Soomaaliya, ayay Mrs Yovanovich ku jawaabtay. uma malaynayo in aan leeyahay awood noocaasi ah, kuma lihi Muqdisho iyo Soomaaliya iyo meel kaleba. waxaan run ahaantii u malaynayaa in meelaha aan ka soo shaqeeyay sanado badan aniga iyo dad kaleba ay ka dhigeen meelo walaaqsan. waad ogtahay gudaha maraykanka iyo sidoo kale dalal kale ee aan ka soo shaqeeyay ay hadalkeedii sii raacisay. waxaan run ahaantii u malaynayaa in meelaha aan ka soo shaqeeyay sanado badan aniga iyo dad kaleba aanan jirin wax walaaq ah oo aynu ka geysanay, ayaa hadalkeedii sii raacisay. Adam Schiff oo ah madaxa guddiga sirdoonka ee dimuqraadiyiinta ee korjoogtada ka ah dhageysiga cadeemaha xilka qaadista ayaa sheegay in qoraalada Twitterka ee madaxweynaha wadankaasi maraykanka ay u muuqdaan kuwa lagu hanjabayo markhaatiga. dhageysiga cadeemaha xilka qaadista ayaa lagu baarayaa haddii madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald Trump uu joojiyay gargaar militari ah oo maraykanka siin lahaa dowladda wadankaasi Ukraine si uu cadaadis ugu saaro madaxweynaha cusub ee dalkaasi inuu baaritaan musuqmaasuq ka bilaabo. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi maraykanka Joe Biden oo haatan ah musharaxa doorashada maraykanka ee dhici doonta 2020 Mr Trump ayaa beeniyay in wax qalad ah sameeyay isaga oo xilka qaadista ku tilmaamay mid lagu dhibaateynayo madax banaanadiisa. Mrs Yovanovich oo fadhigeedu ahaa magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine ayaa shaqada laga cayriyay bishii May 2 bilood ka hor markii uu soo baxay wada sheekaysigii telefoon ku dhexmaray madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, kaas oo haatan udub dhaxaad u noqday cadeemaha ee la doonayay in xilka looga qaado. haddii arintani ay soo shaac baxdo waxa ay noqon doontaa, haddii cadeemankan ay noqdaan kuwa run ah, ayaa waxa ay noqon doontaa in xilka laga qaado madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald Trump oo ay dimuqraadiyiinta aqalka sare ayaga aqlabiyada ku leh ay bilaabeen in ay cadeeman keenaan. iyo qaar ka mid ah codadkii la dhageystay telefoonka uu dhexmaray ay hay'adda FBI-da gaar ahaan kuwa sirdoonka ay soo saareen ama ay la wadaageen qaar ka tirsan aqalka sare ee dalkaasi maraykanka.
madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay mid sharaftiisa wax loogu dhimayo ay tahay in shakhsiyadiisa mid lagu ciyaarayo sida uu hadalka u dhigay. xiisadan ka bilaabatay aqalka sare ee loogu carmay dalkaasi Mareykanka ayaa waxa aanan la ogeyn waxa ay mudnaan doonto ama waxa ay ku dhammaan doonto. dimuqraadiyiinta ayaad moodaa in ay kusoo wajahan yihiin dhanka iyo Trump inay xilka ka qaadaan ayagoon xiligaa ku candoconaya. baaritaankii ugu dambeeyey ee FBI-da iyo sirdoonka dalkaasi Mareykanka ay ka sameeyeen arrimaha ku saabsan xaaladda dalkaasi Ukraine. madaxweyne Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu ka gaabiyey amba uu joojiyey gargaar military loo fidin lahaa dalkaasi Ukraine, maadaama Ukraine gobol ka mid ah waddankaasi Ruushka uu ku darsaday dalkiisa. sidaa darteed gaashaanbuurta NATO ayaa la filayaa in ay arrintani lug ku lahaadaan, maadaama Ukraine ay tahay xarunta ay Russia isaga ilaaliyaan gaashaanbuurta NATO oo ay ku wada jiraan dowladda Mareykanka iyo Yurub iyo waddankaasi Turkiga. halkan ayaan kusoo gabagabaynaa tan iyo ismaqal dambe xiise leh, sidaa iyo nabadgelyo.